waxaa maanta ku dhawaaqay inay gebi ahaanba si rasmi ah isaga casileen xubinnimadii xisbiyada kulmiye iyo ucud xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceerigaabo oo sheegay inay ku biireen xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaanada oo si wada jira ugu qabtay magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah Maxamed Axmed Jaamac xildhibaan golaha deegaanka ah ka soo baxay xisbiga ucud markii aan fikiray arkay siyaasadayada fadhiya xisbiga ucud waxaan door biday inaan aniga iyo taageerayaashayaduba maskaxdayada iyo muuqayaga kula shaqeyno xisbiga wadani halkan anigoo Axmed Ismaaciil Cali oo ah xubin golaha deegaanka kala soo baxay ururadii dhacay muddadii sidii sharcigu ahaan ugu biiray kulmiye waxaan maanta halka ka sheegayaa oo aan u cadaynayaa ummadda inta hor taagan iyo inta ay daawan doonta inaan kulmiye ka baxay oo aan u wareegay xisbiga wadani waxaan u sheegayaa taageerayaashaydii saaxiibaday intii aan isku siyaasadda ahayn kulli waxaan u sheegayaa inaan saaka aan u wareegay xisbiga wadani anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil kana soo baxay markii hore ururadii dhacay ee ururkii rays ka bacdina ku biiray xisbiga kulmiye mar ugu horeyn waxaan halkan ka cadaynayaa inaan maxay ahaytoy maanta aan ku soo biiray oo u soo digarrotay xisbiga wadani sidaa darteed waxaan taageerayaashaydii ugu baaqayaa oo aan halkan ka soo jeedinayaa inaynu u codayno xisbiga maxay ahaytoy wadani si kastaba ha ahaatee iscasilaadan ayaa ku soo beegmaysa xilli gebi ahaanba taageerada bulshada gobolka Sanaag ay dabeeshoodu u sii janjeedho dhanka xisbiga mucaaradka ee wadani Yuusuf Cabdi Xasan Cabde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.